ciyaaruhu waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ka qayb qaata caafimaadka iyo jidhiska qofka bini'aadamka kobciyana garaadka qofka iyada oo uu dhowaan u shaaciyo xafiiska ciyaaraha iyo dhalinyarada in la qaban doono dhowaan tartamadii ciyaaraha kala duwanaa ee deegaanka ayaa waxa uu saaka xafiiska ugu horreyn qabtay tartanka feerka fudud oo uu soo diyaariyey xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalidu kana dhacay madasha ciyaaraha kala duwan ee Havana magaalada Jigjiga waxaana ku tartamayay feerkan 22 feeryaano waxaana ka soo muuqday hablo iyo qayb ka ah tartanka feerka haddaba xafiiska dhalinyarada ciyaaraha ayaa abaalmarino iyo dhiirigelin siiyay xubnaha tartamayaasha waxaana ugu horreyn furay tartankan wasiirku xigeenka xafiiska dhalinyarada ciyaaraha sidaad ogsoontihiin sportiga noocyo badan oo kala duwan buu leeyahay waxaa ka mid ah kan hadda maanta halkan aan ugu fadhino tartankiisa waxaa ku tartamaya 22 xubnood run ahaantii waxay u noqonaysaa xubnaha yacni ku tartamaya ee feerka dhiirigelin bay u noqonaysaa isla markaana waxay u noqon doontaa mid ay kaga soo miro dhaliyaan tartamada deegaanada loo qaban doono ee heer qaran run ahaantii xirfadan waa xirfad dhalinyar badan oo dhinaca sportiga xiiseeya ay aad ma garanaysaa ay ugu dadaaleen natiijo badan ay hadda ka hor ka keeneen marka annagu ka xafiis ahaana waxaan u taaganahay in aan kor u qaadno sportiyada kala duwan ma garanaysaa la ciyaaro dhammaan waxaan samayn doonaa oo deegaanka aan ka hirgelin doonaa in ma garanaysaa magaalooyinka kala duwan tartan caalamiya loo qabto insha Allah si aan xul qaran ama xul deegaan aan u samayno marka waxaan leeyahay hore u socdo oo dhalinyarta moraalkiina kor u qaada aad baad u mahadsantihiin